qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa ka dareen celiyay yeedhmada madaxweynaha Somaliland uu u yeedhay goloweynaha wakiilada maalinta Axadda ee soo socota. ugu horeyn sahan waxaa la hadlay xildhibaan Maxamed Abiib iyo waliba xildhibaan Mustafa Ahmed. Yariyaadu aqlu yariyaadu shacbu yaraba waa intii dastuurku siiyay way la maamuus raggu iyagu kal ra'yi duwan baa la isku tagayaa inta isku ra'yiga isku tagaysa laakiin arinta muhiimkii waxa weeyaan inuu madaxweyne qaranka yahay oo loo tago oo maamuuskiisa uu qaato weey saasaan warka madaxweynaha waana tagayaa anigu hadii ilaahay naftayda iyo maalinta Axadda adiga waad ogtahay oo waxa la yiraahdaa waa xildhibaan aad mucaarad uga dhinaca dawladda markaad kulankan eegto maxaa macnacay ka yaarintan ku sameynaysa madaxweynaha anaga wax ka weyn baa naga dhaxeeyo ragga kursiga saaray baan anigu abaal weyn baa kulay raggu dhabarkooga fuulay oo kursiga ku gaaray baan aniguna kursi kala soo fuulo baarlamaanka ma fadhiya marka anoo dastuurka ixtiraamaya anoo wada shaqaynta ixtiraamaya anoo maamuuska uu dastuurku siiyay ixtiraamaya waa u tagaya madaxweynaha maxaa islaada xilliga way kaatay madaxweynaha isaga la weydiin doona maanta Axadda noo sheegi doona insha Allah anagu ajinta uu madaxweynuhu noogu yeedhay ma ogin inuu nabaariga yuulay si fiican baad u shaqayseen iyo wax alla waxaan ku si qiyaas karna ma garan laakiin waxaan leeyahay si fiican baad u shaqayseen oran doona insha Allah hadii la yiraahdo tahay yeedhmada madaxweynuhu inuu xildhibaanadii golaha casuumay iyagoo isku dhan ayaanu warkaas sanaynay laakiin issue-ga madaxweynuhu ugu yeedhay marka aynu kulanka tagno aynu ogaan doonaayo aad xogta heli doontaa marka kama hordhici karayay marka madaxweynuhu wuxuu ugu yeedhay kama hordhiciyo arinkii wasiiraduna waxay ahayd arin waajibaad dastuuriyoon bay ahayd ma yahayn film ayeen arinkaas qaybkii waa madaxweynaha qaranka waa hay'adii ugu sareysa dalka isagaana saddexda waxood ee dawladda isagoo madaxa marka de kulankiisa waa soo dhaweynaa waana ka qayb galnaa insha Allah xildhibaan Axmed Khaliif waxa uu yeedhmada madaxweynaha ku tilmaamay mid mar hore inay timaado ahayd oo waqtigeeda ka soo daahday horta madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mucaarad iyo muxaafid bisaga madaxweynuhu ah mid jecel iyo mid nacibna miduu jecel yahay miduu nacib yahay bisaga madaxweynuhu ah madaxweynuhuna waa madaxweynaha qaranka oo maamuus dastuuriye buu leeyahay aan wax dhib ah u arkaa ma jirto hadii madaxweynuhuna marti qaaday waxaan aaminsanahay in madaxweynuhu iyo goluhu ay wada hadlaan oo golaha marti qaado in mar hore sameeyay ahayd oo tani waa habsanba hadda oo xurgufo badan iyo dagaalo siyaasadeed badan ayaa dhaxmaray xukuumadda iyo mucaaradka iyo baarlamaanka marka insha Allah waxaan rajeynayaa in wada shaqayn wanaagsan la wada yeelan doono haddii waa la idmo wax dhib ah u qabaan ma jirto waan soo dhaweynaya madaxweynaha insha Allah waan tagi doonaa haddii waa la idmo xildhibaan Axmed Khaliif waxa uu intaasi sii raaciyay marka ay madaxweynaha ay sarkaan in uu kala hadli doono wariyaha dhawaan maxkamaddu sii daysay ee Cabdimaalik Muuse Coldoon balse ilaa hadda lagu iloobay xabsiga halkan waxaan ku hayaa wakiiskiisii maxkamadda ay ku sii daysay weeye marka waxa weeye qoftee maxkamadda sii daysay oo bari yeeshayna in la sii haystaa waa sharci darro marka insha Allah maanta maxkamadda racfaanka loo gudbiyay kiiskiisii insha Allah waxaan rajeynaynaa inay dhamaan doonto وانا كلا هذا دونا مكان أركض والله إنه هذا يصير تقص. باتري كوستار محمود تلفيشة كسان حرقيس.